هلا. ma kula hadli karaa Saabir si meel munaasab ma joogtid ما يود لها اللي كرتها. ballantaada ila gashay maxaad uga baxday بل انت ولا habeenkii ugu dambeysay saarnatan ka wada hadlayni رميسي محمدو أنا سيد وحبو ما يشيدين إلا حتى عدو شاكتي ما قرنايا. intii aan jawaabta kaa soo dhawaxay ma ogeyn hatta markaan jawaabtaada helay maxay tahay sababta xuu ogaaday واتلان يا بنا يا با آمين هبينك إسقى أو كوري يجوس سجيا أيانا قويم. waxa leedahay habeenka intuu joogno wax loo sheegay هبينك أما ما عندي كوريسي من هان بالله شيء إلا حدا أنا بروح أسويتيني يا عدو شاكتي. adigu cid kale arintan marna la wadaagtay ma jirtaa مايا iska dhaaf hadaba isagan toos u weydiin doona cid u sheegtay عدو شاكتي مركز سوق عتو أنا اللي سوى ذا قلال. habeen wanaagsan سوري مولد تلفون ما كره هلي وانكو حلي. وعادي صابرين دب ماله كل حلقة بحيبة لقاري انت هيك بدنا تيمكي كلام سوي كرو ويسورا جنبه والله هذا رسلان سوق حيو ودي دي برمرينه. حاجة مسودية يسونا ها كل أنا قلنا لتشوقي أنت دحلك لقيبني. صح ووفي عن إن الملود دكتور واحد عادين نقنصها إني علادي ماشي كبحث colaadaasi saacado kaliya ku soo hadhay dadka inta kale oo dhan waa ka nadiif imika iyadana intaanay colaadaasi dambiyo waaweyn faraha u gelin in la soo qabto weyn ismili bay imika saacada dambiyo waaweyn ka maran marka la soo qabto kiisaska lagu soo eego weyn oo eegi doona haye sabrin anu sii tagaya wana kaga mahadcelinay soo dhaweyntaada wanaagsan mahadcelini waxa isku muulin guriga waa gurigaagii markastana waad iman kartaa habeen wanaagsan habeen lamida soo soco صباح ونعيش صابرين subax lamida oo safar ma taxi baa haa in yar ka hor bay baxday ma soo fadhiisan kareen kula la rabay waa caadi waad soo fadhiisan kartaa waxa la sheegay Saabrin maalmaheeda waxba cun ma dhaba waxbaan cunaysiyeed haddaana waxba cunaysan u noolaanaya okay waxaan doonayaa Saabrin inaan kuu sheego inaan go'aankayga ka laabtay habeenkii dhawaad si qaldan baan kula hadlay waan in ka raali gelinayaa laakiin ma sheegi kartaa waxa go'aankaaga bedelay inaan ogaadaan rabaa inaan qaldanahay baan ogaaday qofkuna waxaan rabin lagu maqasbo taasoo go'aankayga bedeshay meemkaad ogaanaysaa qofku waxaan rabin inaan lagu qasbin mise markii hore wadageeda waana ku muuqan waa caadi Saabrin way caawin kartaa balse anigu waxaan kugu imid kuu sheego inaan qaladkayga ka noqday canaaniga maaha laakiin arrinka ma ogeyn wax la rumaysan karay maaha qalad iga dhacay buu ahaa qaladkan bini aadan baan u ahay waan in ka raali gelinayaa walaal waan qaadsiyo raaligelintaada waxaan rajeynayaa inaan qood noocaas mar dambe ka dhici doonin waan kaaga mahad celinayaa inaad raaligelintayga qaadatay ina dulqaado walaalka ka weyn oo wanaag kula doonayaanahay waan ogeysiyaa inaad jecesho wanaagayga amba si kastoon kaaga xanaaqo kaaga marmo waan ka xumahay walaalinta kaa oohiyey waxaan ku dadaali doonaa inaan maalin dambe kaa oohin
Aabbo horta waxaad iga warantaa adigii siyaad halkii wax idii maraya ii sheegta aabbo ma wax qarsoon baa jira le wax la wada ogyahay maxaad la xishoonaysaa aabbo meel wanaagsan baa noo maraya aabbo meel wanaagsan ba wax noo maraya la jawaab maahe ilaa hadda maxaad isla qorshaysaa aabbo waxaan isla qorsheynay marka arrimahan oo dhan naga soo afjarmaan inaan anaguna taayada soo jeesano waa arrimo maxay markaa aabbo arrinta sacda sidoo kale soo qabashada nimankii toogta ahaa iyo arrintan dhaxalka kuwaasoo dhan markaan dhammayna aabba anaguna taayada una soo jeesanana aabba maxaad arrimahaasoo dhan iyo arrintii guurkiina aad iskugu xidheen iyagoo waxaasoo dhani jiraa miyaad dhamaysan karin aabbo waan dhamaysan karnaa laakiin saan baa nala qurux badnaatay aabbo waa suugkii duceeye waxaad tihiin dad in badan isla soo halgamay siyaadna runtii waa nin ku dhaqan kara mahadsanta aabbo aabba waan jeclaa adiga iyo walaashaaba inaad qoysas fiican yeelataan laakiin walaashaa nolosheeda halkay ku dambeysay waad arkaysaa iminka wax u wadaadun baan ku haystaa adigana aabba waxaan kuu rajaynayaa qoys fiican insha allah aamiin aabbo anigana waxaa igu ballan inaan mar walba garabkaaga ahaan doono iyadana ilaahay ha soo hadeeyo si kastay waddo xun ay u marto waa dhiiggayga iyo dheecaankayga waanaan u damqanayaa mar walba aabbo insha allah waa lagu geelaysan doonaa soo qabashadeeda iyaduna in yar markay xidhnaato sideedii si ka wanaagsan bay noqon doontaa niyadana khayr u sheeg aabbo habeenkii u dambeeyay aan arko waxay ahayd qof meel oo cad ah waxay qaadatay go-aan aada u qaraaraan u malaynay inaan weligeed ka soo noqon doonin waan ogahay aabba inay go-aan aada u adag qaadatay laakiin waynu ka soo celin doonaa insha allah ilaahay sidii khayr laha ka dhigo warkan ka saacda xalay soo bseen guriga kale haa saqdi dhaxan soo egay odagii dhalana meesha uu ka guuray albaabada dhan waa wada xidhnaay very good waa sidaan doonay waa inaad halkaa ku rarnaa caawa weyna u guuran doonaya markay dadku magaalada wada seexdaan hawsha inaad la gashaan baan rabaa waa diyaar sacdaan kula gelinaa meeshaas waa meesha kale ku ama helayso intaa wadada ku baxsana helino halkaas iska degnaanaysa balse marka hore inaad si fiican isaga hubinaa in gurigaa lagu soo noqonayo kale sidee yacni waa in alaabtii guriga taalo oo dhan la wada qaato haddii alaabi taalo taa macnaheedu waxa weeye in guriga lagu soo noqonayo marka hore aan deganaynba wax muhiima may awl sariir iyo dhowr shay wax lagu karsado keliya taaliba aniga ujeeddadaydu waxay tahay meeshaa intee leeg baa laga maqnaan karaa markay dhulka iibinayaan ama dhisanayaan bay ku soo noqonayaan taasna uma malayn inay dhacayso waayo dhulal badan iyo guryo badan bay leeyihiin mar hadday sidaa tahay waa meel lagu dhuuman karo laakiinse maaha meel aad inoo anfacaysa marka hore waxaan isticmaalnaa kumeel gaar ahaan waa meesha hadda sacdi ku nooshahay waa meel laga soo qaban karo waan idinka sii tegayaa anigu caawsaqda dhexe markay tahay guriga agtiisa isku keenkeena u kaadi sacday kantaroolka iminka lagu soo baadhay inaad marto maaha meel kalean magaalada kaa sugelinaa dee malaha ilaa qaban lugan karto waan lugeyn karayayna marya muhiimad waa inaan meel seefa marno halo waa fiicanta mawlid waan fiicanahay adigu see tahay waa fiicanaan xageed joogtaa magaaladan jooga waan ogay inaad magaalada joogtay xageed ka joogtaa masallahan jooga hadda waan ku yaro baahnaa ma iman kartaa sababba gacanta ku haysaa xageed joogtaa meelaan kaa fogey baan joogaa maqaxi masallaha ma fadhiya
okay waan ku imanaya waad mahadsan tahay هاي يا هاي تحدث سلالي بوي سالم وحبا قولي harlugta qodaxyeen gashanayo حتى ويدي جيستا حتى إنه ست حلين يسرعنا والله ناركي مركان اللي بدي نوحد سميسان هل كان يمرع هل كان له قايرة تنبي يستاقي دوكو أنا جات تجي أنا الباب كسو تشبني مركان تشبينا أنا يبيري أوكي في تشبني هذا تكور هاي دوكو mar labaad barasho wanaagsan baan ku leeyahay hooyo saabiriin iyo safa waa labada hablood aan kulan jiray way geer yihiin waana labada hablood ay marwa walaalaha yihiin ninkanna waa adeer xuseen waana aabo walaalkii hoodan iyo inaan kala hadlay naga maqan ayuu dhalay barasho wanaagsan dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida fiican noo soo dhaweyseen barasho lamida Zainab soo dhaweyn inta ka wanaagsan baad runtii aad naga madnay waan ku faraxsanahay in xilligan wanaagsan aan ehelnimadeena ogaanay aniguba arrintaas aad baan ugu farxay Xuseenow inkastay igu noqotay wax aan marnaba filayn dhammaantiin bay arrintaasi lama filaan nagu noqotay laakiin aanu Ismaaciil dabeecadiisa aan garanay markaan maqlay reer kale oo lahaa arrintaasi la yaab bay igu noqon aniga dhowr sano ayaan wada joognay Ismaaciil hal maalin oo kaliya ta kamaan dareemin inuu reer kale leeyahay waayo umaan arkaynba anigu inuu reer kale maamuli karayo laakiin anagu hooyo inta badan habeenkii nagama dhex jirin taas macnaheedu waxay noqonaysaa idinka habeenkiidii mu iman jirin haa inta habeenu guriga u soo hoyday way yar tahay waa wax fara ku tirisa markuu habeen kasteeda ka dhaxo taasi miyaan shakeedu ku abuurin inuu leeyahay reer kale badanka habeenkii wuxuu noo iman jiray isagoo wax cabsan dhowr saacadood markuu joogjoogana uu bixi jiray waxaan u malayn jiray markaanu soo qaylayo anagana habeenkiisa qodxuu noo iman jiray waxaan moodi jirnay inuu markaa qaylaad ka soo kaca shoo markuu yadkeeda ka yimaado anaga noo iman jiray inuu sidaas samayn jiray bay u badan tahay adeer laakiin waxaa cajiiba intaasoo sano inuu Ismaaciil labadiisa reer uu kala qariyo Ismaaciil uma ekaan nin wax kala qarin kara bal ka warrama aabo haddii aanay marwo yar maalinta loo meelahan arrintan goormayna ogaan lahayn weligeenba mayna ogaanin baa malayn lahaa alla qadarta ilaahay cajiibsana inaan taayar lumitaankeeda ayaa in arrintaa weyn ay soo baxday ilaahay sabab uga dhigay wuxuu ilaahay qadara bay ahayd adeer hooyana mid kale ma guriga ka timid maxaa soo kaxan weyday hooyo waan soo kaxayn lahaa midkoodna guriga muu joogin ka weyna suuqu ka soo xamaashaa habeenkiina xilli dambe ayuu soo hoydaa nin wanaagsan oo karti badan weeyaa ninkaasi sakariyo magaciisa maaha haa hooyo waa ninka reerkoo dhan uu ku tiirsan yahay wuxuu meelaha ka soo xamaasho ayaanu ku noolayn horta Zainab nolosha adag waad ka baxaysaa inay ku bushaarayso waxyaabaha ugu waaweyn aanu caawa kugu yeedhna waxaa ka mid ah inaanu kuu sheegno inuu Ismaaciil ka tegay dhaxal adigii inantaaduna qaybtiina waad helaysaa waa war aad u farxad badan Xuseenow diyaar baan u haynaan dhageysto markaa taasi waa waxaad xaq u leedihiin hooyo waxaan kalan kugu darayaa labada wiil ee kala dhashay inay heli doonaan shaqooyin fiican ay noloshooda ku dabartaan ma garanayo wallaahi hooyo waxaan idinku mahad celiyo farxadda run ahaantii caawa lama qiyaasi karo aad iyo aadna waad u mahadsantihiin waxaad noogu mahad celisay oo habeeraata ku sameynay ma jirto hooyo waxaanu kuu sheegnay waxaad marka horeba xaq noogu lahaydeen haa Zainab waa sidaa uu siyaad kuu sheegay
xaqiin iyo idiga maqnaan baad iminkana helaysaa ilaahay baan dhammaanteen arrintaa ugu wada mahad celinaynaa alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale mar baad halka ku noolaan jirtay sacda marna nolosha ma ku noolaan jiray marna qasar dhowr dabaqa nolosha sidaasaba noloshu way ku qaldan tahay qofay maru kala kacsanaan jirtay inay halkaa kusoo tuurto aniga nolosha may soo tuurin yuusuf masiibo kastoo dhacda rag baa ka dambeeya ana rag baa halkana dhigay cadhadaad mawlidii sidaad u qabto rag oo dhan inay ku dhacdo maa sacda halkaa ka fiirso labadooda oo keliya maaha u fiirso adduunka waxaa ka taagan dhibaato kasta waxa ka dambeeya waa rag gabadh haddii la kufsado rag baa ka dambeeya maati haddii la laayo rag baa ka dambeeya waxa adduunka dagaal ka taagan rag baa ka dambeeya dhegeyso waxaa hadda kula shaqaynaya qudhoodu waa rag taas laftirkeeda ay laawin dooda rag iyo dumarka udhexaysadan meesha keeno waan iskhilaafaynaaye waxa danteena ma ka hadalnaa ka wara meesha waa agta meel ku badbaadi karto way dhaantaa meelihii horan joogeen iyadoo qudheed laakiin ma khatar yara wax kastaa way dhici karaan si aad meesha ugu badbaado sacday waxaa lagaa doonayaa inaad noqoto qof habeenkii oo keliya nool wax kastoo u baahan tahay waxaa lagaa rabaa inaad habeenkii qabsato maalinkii oo dhan albaabka ku xidhnaado haa wixii cuntaay waad u baahantao dhan habeenkii sii qaado iyadoo maal laada albaabka furto jaarkaa ku arki karaa maalintii laba dooni wax dhaqaaq inaad samayso oo idinku mayda mararka qaar iyo imanin masada hadda ku baxdaan baad ku maqnaanaysaan maya mar kasta noo suurta gasho waan ku imanaa laakiin imaashayga qudhiisu khatar buu kugu yahay mana doonina inaan kugu badano haddaba anigu habeen walba muskan kama sii dhici karo kama soo dhici kare iminkooda arkaysa inaan dadka kaga soo baxay 3 cisho mar adeegay keena anaa halkan iska dhex fadhiyan ku karsanaya saas ma macquul koo yuusufow saas meel kula fiicneen maya saasaaba inaga inoo fiican inta habeen kasta bixiray inagoo 3 habeen mar u nimaadna ayaa inaga inoo khatariya saasaana sameynaa haysasan isku oganaya iminkana waan seexanaya iga baxa meela seexanaysaana habeenka waa ku wacnaa hooyo adigii mar waxaa ka tagtay aawoo dhan jaarka naga soo raadinayay hooyo ma arkaysa farxadda wajiyadeeda ka muuqata meeshii aanu farxadda kala nimidnay ayaanu ku maqnayn haygo odhan hooyo siyaadii qoyskooda waan tagnay waan tagnay hooyo waxaanan kaaga sidaa warkii abid ugu farxadda badnaa een maqlay laakiin sabab hooyo sanigu isku gamka soo tagsan israacno maxaad nooga tagtay hooyo macan inta kama tageen siyaad baa gaari noo soo diray idinkuna waad maqnaydeen anna waxaan isiri gaariguna in badan taagnaan maya hooyo kulan saasoo kale muhiim inaad naga tagto maan jeclayn waayo waxaan jeclaa wax kastoo meesha laga leeyahay inaan dhegayga ku maqlo imikaba wax kastoo meesha ka dhacay anaa idin hayo hooyo wax kastay igu yidhaahdeenna anaa idinka sheekaynaya wax kastoo la sheegay muhiim maaha inaan ogaano shirkadda maamulaha ka noqon lahay ma helinaa mise ma helino nagaa musniya hadda waxaan ula warramay imanku mid waxaan loo joogan ka sheekayn doontaa mar kastoo hadlo maa hadalka waynu dhabayay sheekaysto niga kacayay hay hooyo warkoo dhammaystira balisi hooyo qofkan maxaa saa ula hadashay waad ogtahay dabeecaddiisa maad naga daysid inagada hooyana keli warkiisoo bali waran maxaad kala soo kulantay reerkii hooyo waxaan kala soo kulmay war aad u farxad badan ma garanayo meel aan sheekada kaaga bilaabo sheekada waxaad kaga bilowdaa waxaan kiishka ku jira waxaan kiishka lagu soo kor waa maxay fiicanta alxamdulilah waan fiicanay soo fadhiiso